السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لهاد لايا ولاشين ديقو ما شاء الله أدبد ما تنتين أصحابي انتي هورين ولسي جوكتي وحان لينا هاي ما شاء الله كومنتيدي نقروح بدن أدبد ما تنتين انت أصحابتو نقو عصبنا وحان لينا فيديو هادي تاي مركي كوغو ريسي بليز نورسار سبسكرايب ماشا عسانكا يا سبسكرايب كوا ماشا يرى عسانكا قرالك عسانكا قرانتهاي ماشا تابسو كمبليلكنا نو taabsanayna si video kasta oo cusub oo aan soo dhigna oo ku soo gaaro maasha Allah asxaabi caaw waxaan wadaa barnaamij aad jeclaan doontaan aan ugu talagalay dhammaan dhalinyarta inaan uga faa'iideeyo dhageysi wacan iyo wixii dhalinyarnimadoodii soo dhaafay laakiin se wali aanan gelin heerka guurka amba wali aanan guursan ayaan kula hadlayaa insha Allah kulli caaw mawduuceena ugu horeeya wuxuu ka hadlayaa maalinta ugu horeysa ee qof isbarataan amba kulanka ugu horeeya ee qofka aad jeceshahay amba aad rabto jacayl aad u sheegato amba aad rabto inaad jacayl u sheegato kulanka ugu horeeya la kulmayso ayaan caawa ka hadlaynaa insha Allah waa kan qodobka ugu horeeya ee nooga baahan yahay waxay tahay qodobka ugu horeeya ee looga baahan yahay waxay tahay inaad horta habeenka ma sha Allah dharkaaga ugu qurux badan ee jeceshahay ya waa inaad soo xirataa koow waayo waxaad rabtaa qof bilaadan inaad hanato qalbigeega waxaan ku yiri sheeg in maskaxdeeda qof bilaadan ayaad rabtaa inaad u soo bandhigato ya oo inaad rabto qofka inaad ka dhiganaysto mustaqbalkaaga insha Allah marka waxa laga rabaa habeenkaas inaad dharka ugu qurux badan aad soo xirato laakiin si lama rabo dharka aad xiranayso inuu noqdo tabal caaro waxay ka dhigan tahay yani inaad asxaabtaada ka soo qaadan ku kalsoonow dharkaaga inta aad haysato ayaad soo xiranaysaa waayo mararka qaarkood bal aniga sheekay waxa dhacda marmar adigoo u socda gabadh aad jeceshahay san filmaanta ka aragno ama riwaayadaha ka aragno adiga oo u socda gabadh aad jeceshahay laga yaabaa inaad shaatiga qof aad ka soo qaadato mise adigoo gabadhii la joogay inaa lagu dhaho waryaa hebelow shaatigan anaa iska la ii bixi kabahana hebelkii lahaa uu soo doonto marka asxaabta waxaan kula talinayaa amba waxaan oran lahaa insha Allah waa inaad maxay haydeen dhar adigu aad iska leedahay walow aba iska noqdo duuge amba dhar baaliye aan noqdo laakiin san dhar adigu aad iska leedahay oo meerato waa maamaha baa tiraahda wax kasta waxa ka xiga waxaad adigu markaas waxa loo baahan yahay maalintaas inaad noqoto qof maskaxdiisu ay degan tahay amba maskaxdeedu ay degan tahay ma sha Allah horta qofka marka ugu horeysa waa qof kugu cusub waxaad sheeganaysaa yani waa wax qof la yiri oo kale inta minadii lagu xidhay isqarxi laga yiri ayaa kala tahay laakiin dad waxa jira waxa waxba aan ku arkin sheekooyinka ku fiican laakiin anagu waxaan halkan kala hadlayno waa dadka aad xoogaa xishooda amba wixii ka xishoonaya waxaan leenahay horta 5 minutes ugu horeeya ama 5 minutes ugu horeysa waa iska yar laakiin isa soo yar mashquuli heesta aad ugu jeceshahay dhigaha soo yar gasho yani xishood yaa laga dareemay because gabdhuhu ma jecla nimanka xishooda ya nin xishooda oo forforsado waxaan ku yiri in hadallada u fikra lama rabo waa inaad noqotaa nin ma sha Allah wuxuu u socdo iyo wuxuu rabo sheegi kara marka waxaan ku yiri qodobkeena ugu horeeya maxaan idhi waa inaad quruxda iyo labiska naga soo dhistaa ya waayo quruxda labisku waa quruxda barkeed waayo qofku intuuna dad baa kooranaya in quruxda la sheegay waa gudaha dabada gudahaaga qofku muxuu ka arkaa gudaha qofku ma wuxuu ku hayaa kamerad buu ku hayaa masraadar buu ku hayaa waxa ugu horeeya qofku maalinta ugu horeysa uu akhrisanayo uu arkayo waa labiskaaga waa qosolkaaga isku day markaad gabadha u timaado inaad dholo cadeyso isku day Soomaalida horta waxaan ku yiri mid baa naga khaldanay qofka maalinta ugu horeysa uu tagaysinayo hadiyad u qaad ya waa ina hadiyad aad qaadaa waayo gabdhaha maanta sanadkan jooga waxa loo kirlaa nimanka waxa ku leeyahay walaalo gabadhina ma bayalas gabadhu waxay nagu yeelin waa gabadh 90 ka hindi daawanaysa ya marka waxaan leeyahay gabadha maalinta ugu horeysa ee isqaabileysaan ilaa qof aad si wada sheekaysan jirteen waa qof aad taqaano waxay jeceshahay waa inaad qofka kulankiina ugu horeeya adoo qacmo maran ha tagin qacmaha lagu goomaan dhahnaaye waa inaad gabadha hadiyad wuxuu raqiis baha noqdo amba lacag badan bay ku bixin laakiinse waa inaad qofka maalinta ugu horeysa waa inaad hadiyad u geysaa waayo waxay ku cadeynaysaa inaad tahay qof faxal ah amba kariim ah ya gabdhuhuna way ka helaan ani sheega sirtaas gabdhuhuna waxay ka helaan wiilasha qacanta furan leh
niya waxaan ku yiri xitaa hadaan qacan furnin habeenka isku dayo waxaan ku yiri waxun qaadbal meesha kulli xabad faantaana ka noqotay adoo qacmaaga madhayn meesha tagin qodobkeega ugu horeeya kaas baan oranayna insha Allah ma sha Allah qodobkii ugu horeeya waan sheegnay qodobkii ugu horeeya waxaan waa inaad noqotaa qof yani maskaxdiisu ay degan tahay oo isdejinaya oo ma sha Allah oo labiskiisa wax kasta ay sidaa yihiin kalabaad waxa weeyaan inaad su'aalo aad qofkiis weydiisaan si ay sheekadii yani isku keento oo qofkii adigana aad wax badan aad ka barato mid baan kuula talinayaa si aanad waxaan aqoon banadu caajisin meesha aad qofka marka ugu horeysa balanta aad ku leedihiin asii hortagin si aad maanta u daalin waqtiga ka sii hormarin baan ka rabaa yaan ka wada si aad maanta u dhihin meena soo socon aawid goormo imanaya aad oranin waqtiga aad qofka balanta leedihiin 10 midhoon ka sii hormar marka waan niri xabadii midka ugu horeysa maxaan niri waa inaad labiskaaga waa inuu sida ahaada midda labaad waxaan niri waa inay maskaxdaadu deganaataa midda saddexaad maxaan niri waa inaad hadiyad wadaa noo bakayl nimanku dumarku ma jecla nimanka bakayleenta waa inaad hadiyad qaadaa midka afraad waxa weeyaan inaad marka adigu gabadhi markay timaado ee soo dhaweyso ee magacaaga iyo wax kastaba maasha Allah aad u sheegto inaad sheekada su'aalo yani la isbarto ad maxaad qabataa anu kan baan sameeyaa adoona faaneyn wax ka heshaa maxaad se necab tahay cuntada waxa ay ka hesho hadalka siday maasha Allah waa inaad noqoto qof markasta dhoola cadeynaya waayo qof cadoonaya oo de waji macbuud oo saa u fadhiyo naablay maxaad ka heshaa haddana saacada amusayo su'aalka loo soo fikirayo wada baa ma noolihiin waxaas lama baahna nin oo isfurfuro waxaan ku yiri su'aalo romantiga oo de waxaan ku yiri in ay sheekadu ku soconayso lagu aqbalo de ileen waxa tahay qof labadii baad u taagan tahay ma lagu yeelay amse lagu ma yeelay marka midda labaad ee sameynaysi waa taas waa inaad sheekadii adaanina waa inaad u furfurtaa gabdhaha iska xishoodaan waa inaad adigu sheekaysaa waa inaad gabadhi ka hadalsiisaa waayo kullama qofkii su'aal aad weydiiso iyadna su'aashii markii jawaab ku siiso su'aashii kale ku weydiinaysa yani labadiina qof waad isku soo dhawaanaysin xishoodkii iyo baqitaankii labadiina dhinacba ku jiray ayaa meesha ka baxaya taasi waa talabaad midda saddexaad markaad gabadhi ogaato waxay jeceshahay amba ay gabadhi ogaato waxaad adigu jeceshahay waxa halkaan iga soo baxaysa waxaad iskaga mid tihiin de marka waxa dhici karta inay ku farxad geliso ay sheekadiina sii socoto waxaan leenahay maalinta labaad iyo wixii la is oran doonana video kale ayaad kaga bogan doontaan insha Allah waxa kale iga tala ah qofka meesha maalinta ugu horeysa aad balantaad ku leedihiin ha sii tigin yani hore au sii tigin waxa dhici karta inaad marka aad meesha iskaga caajisto maanta inaad su'aal isweydiiso oranaysa gabadhi meesha martaba iyadii miya goormay soo soconaysa goormay imanaysa aad su'aalo badan isweydiiso waxa qurux badan meesha aad balanta ku leedihiin inaad tagto 10 daqiiqo ka hor waa inaad sii tigtaa insha Allah markaana waa inaad adiga de aan baxayso dhagahay kugu sii jiraan waa inaad noqoto qof is mashquulinaya inaanad noqonin qof isla hadlaaya sida wax waarana gabadh markii sheeda ka aragtay tiraadana bismillaah kani waa shay waxaan iskaga baxsada meesha marka maanta maxaan nidhi waa kulankeegii ugu horeeyay qofku sida u soo labisan lahaa iyo waxaad gabadha u keeni lahayd markay sheekadii inay dhamaato ay gabadhii ay ku faraxdo labiskaagii amba barfuunkii ka soo baxay habeenka waxaan ku yiri gabadha maskaxdeeda ku dhex jiraya cadarkii markay ismeel garayso istaas tiraado waxay oranaysaa cadarkaagii indhaha markay isku qabato waxay arkaysaa quruxdaadii iyo maasha Allah markay istiraado farax amba qosol oo dhoola cadee waxa ku soo dhacaya u bixi aad u siday iyo sidii wacnaa ee magaceega ugu dhawaaqaysay deeniya waxaan ku yiri haddaad fanaan wax isku tihiin amba hadda heesaha waxaad xafidsan tahayna waa inaad gabadha hees yar qaadaya adoo kalamiya adduunka lagu arkay bada wax aynkaasaya oo gabadha waxaan ku yiri indhaheega quruxdeeda aad ku soo raacday amba waxa ay wanaag leedahay waa inaad qofka tustaa si ay maalinta ay noqoto qofkii ay ku fikiraysaa adiga had noqoto waayo waan ognahay qofka wixii la gashado adu caawa hadaabad iska soo qaad wax qurux badan aad aragto markaad sii seexanayso wixii baa ku hor soo soconaya de waxaan ku yiri wiilka inta sameeyo wuxuu noqonayaa wiil sheekadiisii la qaabilay oo raali laga noqday ayuu noqonayaa insha Allah videoga xiga waxaan kaga hadli doonaa markay kulanka ugu horeeyo dhaca waxa de sheekadu insha Allah say u socon doonto ayaan ku sii wadeynaa aad baad mahadsantiin asxaabay inta nagu cusub waxaan leenahay please subscribe noo saara aad baad mahadsantiin inta nala sii joogtana waxaan leenahay maasha Allah in kama daalno mahadnaqayna aad baad mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadba videoga asxaabtaada la wadaag dhalinyaro fara badan oo u baahan baa jirta inay wax ogaadaan kuwaas la wadaag insha Allah cashar ay fikirka badan iyo cabsida badan ee ka haysa inay gabadh la kulmaan amba gabadh ay waqti la qaataan
cabsida ka haysa inay xoogaa ay ka degto ayaan rajaynaynaa insha allah aad baad umahadsantihiin wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha lagu saliyo xabiibkeena allahuma salli calaa sayidina maxamed jaw jaw